الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوتي في العقيدة، qabyaaladda ama tacasub ilqabali iyo raadka uu ku leeyahay burburka ummadaha, waxaan is leeyahay waa tajriba mucaasha. qofku waxa aanu la noolaynba taariikhdeeda looga warramaa, waxaanu arag ayaa loo sheegaa taariikhdeedu sida waxaasi u dhaceen ama ay wax u yeelaan. laakiin qofka soomaaliga ee maanta nool ee 30 sannadeed ee ugu dambeeyey joogay ama qayb ka mida joogay, ma islihi war badan baa ugu dhiman tacasubka qabaliga ahay sida uu ummadu burburiyo. waayo waa waaqacan ku nool lahay oo natiijadiisi aan aragnay. ummadda waxaa la yidhaahdaa waa dad wadaaga wax badan. ummaddu ee ummadnimada ahi waa dad mabaadic culya iyo caqaa'id wadaaga, ama caqaa'idu saxiix ha noqoto ama hayru saxiix ha noqoto. ideology mideeyey bay haystaan oo isu keenay dadka kan. waa dad qaanuun mideeyey haysta, ama qaanuun sharci oo saxiixa ha noqdo ama mid wadciyo bini aadam uu samaystay ha ahaado. waa dad qiyaado midaysan leh, hoggaan midaysan leh. waa dad wax badanay markaa ka dhexeeyaan. ummaddu markay intaa weydo ama wax kastoo intaa waxyeelaya, waxaan odhan karaa waa canaasirta keenta in bulshadu burburto. nimanka siyaasiyiintii waxa koowaad ay ku dadaalaan waxa weeyaan dadka see homogeneous group looga dhigi karaa, see bulshada afkaarteeda laysugu dhoweyn karaa, see laysu raacin karaa, say wax wada u arki kartaa. matalan iminka wadanadan dimuqraasiga maqlaysaan, dimuqraatiyaddu waa laba qaybood. qaybi waa aalad qaaba oo la adeegsado oo ah maalan in la isdoorto, in baarlamaana la samaysto, in dowladda la kala saaro oo qayba laga dhigo, qayb tashriici dejisa iyo qayb tanfiid samaysa iyo qayb qaadi noqon. waa ijraa'aad, laakiin ijraa'aadkan philosophy ka dambeeyo mideeyey buu leeyahy. democracy intaanu ase political usoo bixin, wuxuu usoo baxay enlightenment theorygii baa yimi. dadkan in muctaqad laga dhaadhiciyo, philosophy bay wada qaateen, kaasay ku qanceen. dabeetana waxay garteen say u kala baxaan, ay ugu heshiin karaan. innaga xataa haddaad aaladda tan qaado, islaamnimo dhaafay, haddaad aaladan qaado istiraado dadkan ha loo ekaysiyo siday u egyihiin, mabaadi'i kama horeyso. axsaabteennu markaaba reer hebel unbay isu bedelaysaa, ilaa mabda uu ku jiro xisbigani ma jire. axsaabteenna waxay ku kala gedisan yihiin marka la yidhaahdo waddankii axsaab badan baa laga sameeyey, one man one vote baa laga sameeyey, caynkan baa laga sameeyey. xal maaha. waayo xataa intan gaalku haysta kuma gaadhaysid. sababtu waa maxay? adigu ideology bulshadaadu laga dhaadhiciyo axsaabtana sidaa ma jirto. axsaabtaasi waxay ku kala gedisantay, kaana nin reer hebel inuu madax kayo hebel hebel la yidhaha, kaana nin reer hebeloo waxaanay sheegayaana kale waa iska hadal. marka ay rabaan cod siduu ku helaya waa inuu reerihii shiriyaa. haddaynu reer hebel lahay inagu xisbigan baynu leenahay, kan baynu leenahay, intan baynu qaadanaynaa, kan baynu qaadanaynaa. marka reer hebel oo dhamina xisbigan buu maraya, reer hebella xisbigan buu maraya. saas idan xataa aaladoodu kama shaqayn karto. walidalik كأمة الصومالية مركينو نهي
qabiilku ideology buu leeyahay kooban oo ah unsur akhaaka dhaaliman aw madluuma tol intaasaa lagu yihi tolnimadu wax fiican way leedahay oo sharcigu ina faray oo ah in laysu gargaaro xaqa laysu sheego allahuma salli calaa maxamed layskaalmeeyo takaaful ijtimaaciya reerku ninkii guursanaya la kaalmeeyo ninkii dayn lagu yeesho haddii wax laga bixin kara laga bixiyo qayb fiican way leedahay qabiil markaynu idhaahno laakiin tacasubka qabaliga ahi waa reerkayga bes erya gardarraba reerka xaq iyo baadilba reerka taa macnaheed waxa weeyaan dee ummad ma noqon kartid oo sababta keentay markaasi inaynu burburo sababta keentay baan odhan karaa marka imika la yidhahda dowlad soomaaliyeed ha la sameeyo dee dadku dhibtii wuu wada arko wuu aqbalaya arrin ashiriyo ha la ysugu yimaado dad badan baa isu imanaya haddana dowlad noqon mayso maxaa xaggay wax iska dhaafsan yihin yani 15 16 shir 17 shir bay Soomaali gashay mid kasta waxbaa lagu soo dhisay wixii haddana socon maayo waayo dee marka hore in waxaynu sugaynaa yaa meesha sariya inta xoogan qabsanaya nin waliba marka hore wuxuu silay lagama xoog badna ku day inay idinku heshaan madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirada ama intan laakiin markay intii heshay soo baxdo intaan helin waxay leedahay cagaa qaba hadaba tan iyo inuu ku kicin reer walba xoogsanaya haday tan qabsatay yay talaabsanin waa in la dumiyaa inta markaa hungurigu inagu jirana waynu midaysanay ila ideology kuma midaysan waxay ku midaysan noo rabnaa dawladdu waa xoog dawladnimadu waa askar iyo ciidan waa system waa dhaqaale iyo cashuur iyo wax la ururinayo waa kayaan jira reerka kayaanka qabsada wuxuu rabaa reeraha kale inuu dhulka la simo doo askarta helo ka hubato hadduu isagu dhaqaale helo ka dhaqaale bato hadduu jaamacada iyo meelaha inta caruurtiisa u diro xataa hadduu intaa ka simo waxay u arkayaan faankii in laga helay ila reernimadu waa faane ana ka aaba fiican ku maamuli jiray weeyaan haddii aan markayga ku maamuli kari waayo waa inaan maamulkaaga ridaa fakhrigii baan waayaya annaga ra'iisul wasaarana cid ba wax ma siiyo reerkaba kama tirsana laakiin mujarrad inuu nin reer hebel yahay ayaa faanka igu filan haddaan markaa faanka waayo waa inaan faankiina dumiyaa ama waa inaan markayga ra'iisul wasaare noqdo ama caynkan xal waxaynu ka dhiganay oo la yidhi bal muu dadkani qabiil ka teg waayo qabiil ha loogu qaybiyo oo qabiil miyuu ku qaybsamaysaa hadde qabiilku wuu sii jajabaya oo sii dumaya idan ayuha alaxiba warka ah qabiilku suu wax u dumiyaa waa war practical aynu soo aragnay waxaa ka habboon inaan malaa'in badan isweydiino war saynu uga baxnaa saynu uga bixi karnaa dadka badh baa leh qabaa'ilkaba ha la masaxo waxaana la tirtiro ma tirtirmayso qabiilnimadu inuu ninku reer ka tirsan iyo ku abtirsadaa ceeb maaha ilaahay wuxuu inoo tilmaamay shucuub iyo qabaa'il aynu nahay laakiin maxaa laynoogu tilmaamay litacaarafu inaa isku garataan waa macrifa qabiilku wuxuu inoo joogaa halka galada tan beershuun nambarkuu joogo markaa lagu weydiiyo 9 nambar baad taxaysaa anna 9 oday un baan taxayaa si lay garto 9 nambar ma haysto laakiin waxaa inay hebel 9 oday baa sheegaya markaasaa lay garanaya in lay gartaa ma xumo markaa in lay garto oo dadku nasab iyo sihir ba yeesho oo meeshan ka soo jeeda la garta ceeb maaha laakiin mushkiladu waxa weeyaan ideology-ga qabiilka ma bedeli karnaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilkii ma tirtirin quraysh sidii bay quraysh u ahayd aws iyo khasraj sidii bay aws iyo khasraj u ahaayeen ghatafaan sidii bay ghatafaan u ahayd mudar iyo rabiic sidii bay u ahaayeen qaxtaaniyiintii yaman sidii bay ahaayeen qaysiyiintii shaam sidii bay ahaayeen qabiil waliba sidii buu u jiray wuxuu nabigu bedelay calayhi salaatu wasalaam ideology-gii qabiilku haystay afkaartu rumaysnaa waxay ahayd in la isxaqiro oo reerka kale la yeeso
quraan iyo sunno badan baa soo degtoo tilmaamaya in la isyasaa inaanay bannaanayn dadku inuu asal qura wada leeyahay usro qurana ka wada yimi dhoobana laga wada abuuray aabbiyo hooyo qurana wada dhaleen sidaana ku kala fiicnayn mabaadi'doodii baa la saxay waxay rumaysnaayeen unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa gar iyo gardarraba u hiili weedha lafteedii buu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam unsur akhaaka daaliman aw madluuma weedha tani way yaabeen saxaabadii iyo dee ma wixii horaa lagu noqday waa waxay ka soo baxeene wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu xaq ku taaganyana u hiili saad qof kastoo muslima ugu hiilin lahayd hadduu baatil ku taagan yahayna ka qabo taasaa hiilkiiya ilaa naar baad ka hor joogtaaye tolka ama dunida marka la jebiyo inaad ka celisaabaa hiila oo markuu naarta ku gurmayo inaad kusii daysa maya iyadu maxay tahay tolka haddaad naarta ka celin kari weydo umaad hiilin isagoo baatil wada isagoo cadaab ku gurmaya inaad ku eegtaa waa hiil daro hiilkii nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa in xaqana loo sheego hadduu xaq ku taaganyana lagu taageero waxay dadku sokeeye iyo shisheeye ugu kala ahaayeen inta ay abtirka u kala dhow yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay mid ka sarraysaa inay jirto oo hadday taasi go'do tanna uu go'ayo aasirada bini aadamka waxaa isku xidhaa alwashaa'ij bini aadamka isku xidhaa waa alwalaa walbaraa waa caqiida waa diin baa reerkii kala kaxaysay ideology wixii la rumaysnaabaa reerku ku kala tegey ghaswatu bader gaal iyo muslim baa isdilay baynu idhi gaal iyo muslimka isdilaya waayo waa rag ilmaadeeraa markuu quraysh 3 ninoo 2 walaaliya inaan ay dhaleen markay soo baxeen ansaar baa u soo baxday waxay idhahdeen ma rabno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay weydiiyeen raggii noo dhigmayay soo saar wuxuu soo saaray rag ay maxay kala tirsadaan raggaan wax badan la kala tirsan baa la soo saaray oday qura la wadaago qabiil qura wada yihiin laakiin ideology lagu kala tegay islaamku markaa wuxuu barow qabiilka ku daweeyey qabiilkani waa wicaa dadka ururiye laakiin ideology maaha afkaartii uu dadku rumaysnaa afkaartuu dadku rumaysnaa waxaa laga dhigay inay caqiide noqoto iyo diin inay noqoto alkhuwa alislaamiya qofku mar hadduu muslim yahay inuu kugu leeyahay xuquuqda islaamnimo oo xuquuqda islaamnimo waa maxay an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik waxaad naftaada la jeceshay inaad walaalkaa la jeceshaato xuquuqda kugu leeyahay waa an tansura xuquuqda kugu leeyahay waa wanusxi likulli muslim inaad u naseexayso xuquuqda kugu leeyahay waxa weeyaan hadduu baahaya inaad wax siiso haddii la dulminayo inaad ka dhiciso idan mabaadi' buu islaamku baray mabaadi'daasaa waxay keentay inay buuxiso maadaama qabiiluu jiro nawcun maa munaafasa jiraysa maxaa lagu loolamaya waxaa la bedelay wixii lagu loolamayey waxaa laga dhigay inay ku loolamaan khayrka iyo xaqa ilaahay subxaana wa tacaala intuu janno iyo nicmooyin iyo wax ka warramayba wuxuu yidhi wafii dalika falyatanafasi lmutanaafisuun kuwa loolamaya kan ha ku loolamaan dagaalada adag marka la gelaya waxaa la odhan jiray hala garta dhanka ragga ka jabaye kala baxa reer hebel halkaa ka dagaalgal reer hebel halkaa ka dagaalgal fronts baa la kala siin jiray reer waliba isagoo ceebta iska ilaalinayo xagga sare gaalada dhanka kale ka mari jiray idan reeruhu tanaafuskoodii waxaa loo bedelay inay khayr ku tanaafusaan inay wanaag ku tanaafusaan loolan inay ku loolamaan laakiin wax khayra waxay ku loolamayeen cid waliba islaamka wuxuu taray intuu taray ee islaamnimada kusoo kordhiyey waxaan odhan karaa si kale haddaanu tilmaamo waxaa loo sameeyey almabaadi' alculya walahdaaf alkubraa qabiilkii yaraayo quraysh lo odhan jiray maka joogay ama ansaar ee aws iyo khasraj ah waxay qaateen fikradda inay dunida mas-uuliyadi ka saaran tahay alcaalamu kullu awal wuxuu u arkayay reerkan ku xigay inuu iska celiyo caqligiisu madiino ma dhaafaynin aws waxay lahayd khasraj iska reeb khasrajna aws iska reeb bay ahayd qabla alislaam ama marka kan waxay u arkaan adduunkaba in iyaga mas-uuliyadi ka saaran tahay
walidalik waxay noqdeen dad ahdaaf kubra meel saro ay ka fakeraan leh ahdaaf kubra markay ka fakereenna waxay noqdeen caalamka oo dhan inay diin gaadhsiiyaan around 50 years ay dunida maanta muslimku degan yihiin oo dhan saxaaba furtay inta ugu badan leh dunida maanta muslimku degan yahay inta ugu badan leh saxaaba furtay less than 50 years bay dhan walba uga baxeen yani waxa loo sameeyey lama odhanin lama loolami karo reer hebel lama loolami karo ee waxa la yidhi waxaad ku loolamaysaan waa inuu khayr noqdaa waxay noqotay kuwii shalayta la yasayey inay noqdaan muslimiintaba dadka ugu magaca weyn leh waayo waxaa loo tilmaamay dhalasho inaanu wuxuu ahayne acmaal inay tahay taariikhda islaamiga waxaa maqashaan nin la yidhaahdo maxay مسلم ابن قطيبة ابن مسلم الباهلي باهلي وقبيلان قبائل كعربيد لما اجي شريك كمده وقبائل وقبيات الماما الى حد وليه هي ايجا هدي لون نسبيه قبيل كان اول هدي ايجا لو يراهد بيقول باهلي با طاي ايجو وكعي اسو ديدن قبيل كاسي qabiilkii caynkaa lagu tilmaamayey rijaalkii ka soo baxay waa ninkii furtay maxay almashriqi alcarabi islaamka barigana galbeedkana waa muusa bnu nasiir iyo taariq ibnu zayaad iyo raggaas raggii la mid ahaa haddii bariba loo kacana khuraasaan laga bilaabo wixii ka dambeeyey raggii furay waa qutaybata bnu muslim waa nin taabiciya waa baahiliya isaga iyo kuwuu dhalay iyo aabihii muslimka kane muslim waa raggii cabdillaahi bnu zubayr dagaalka la galay wakhtigii khilaafadiisa wakhtigaasuu ku dhintay yacni acmaal inuu yahay waxa lagu soo baxaa reer inaanu ahayn baa la baray fakhrigu haddaad faanfaan iyo waxaad ku soo baxdo ilaahay agtiisa ha lagaa sheega baa la yidhi iyo maroo nin bini aadamku ku sheego iyo in rabbi agtiisa lagaa magacaabo idan ciddii faan doonaysay waxaa loo sheegay meesha faanku jiraa xaggu yahay ciddii raganimo ku jirtay waxaa loo sheegay raganimada walaalkaa inaan lagu adeegsanin meesha lagu adeegsadaa xaggu yahay daaqaadkii uu reerku lahaa waxaa la tilmaamay meesha lagu tilmaamayo idan ayuha alikhwa carab qabla alislaam waxay soo mareen fitraad ay dunida ugu liiteen iyadoo hareerahooda dowlado xooggan ay ka jireen bershiya dowlad xooggan baa ka jirtay romanskana dowlad xooggan baa ka jirtay intan carabi degtaana waxba kama jirin sababtan wax uga jirinna waxay ahayd caqligaa hoos u fororsado qabiil intuu noqdunba reerkan yare ku xigunbuu eegay uun reerka ku xigunbuu iska dhicinayay wuxuunbuu arkay uun reerka inaan marnaba laga bixi karin durayd ibnu simma gabaygiisii maxaa ka mid ahaa wahlana ilaa min ghazaya in gawad gawayto in tarshad ghazaya arshudu waa gabay dheer oo uu walaalkii ugu baruur diiqayo durayd ibnu simma waa nin shaacir faarisoo jaahiligiya islaamka wuu soo gaadhay isagoo da-oo gaboobay oo la sido laakiin muu islaamin bale muslimiinta aba ghaswatu xunayn ku dishay isagoo hawaasan qabiilkiisa la socda taladii qabiilkiisu intay diiday cawf ibnu malik intuu diiday ayaa dagaalka la soo galay waxay yidhaahdaan nin faris oo macruufaba aha 100 dagaal in ka badan buu galay fii jaahiliyati intaba wuu guulaystay bay yidhaahdaan raggu walaalaa la ahaa dhammaantood dagaal baa lagu dilay dhammaantood nin walaalkiiyo ka weynaa cabdilaahi la yidhaahdo bay duulimaad wada qaadeen reer bay xoola ka qaadeen xoolihii markii laga soo qaadayna sidii qabailka Soomaaliyeed qaar ka mid sameeyeen waagii hore ay dagaalada geela qaadi jireen ayuu meel dhaxays kala fadhiistay geelashiya wixii uu soo qaaday durayd ibnu sima baa la taliyay walaalkii wuxuu yiri war reer hebel weyna soo gaadhayaan meel cidnaana wad fadhiday halkan hayna fadhiisinine xoolahan guriga geysanne soco may waa nasinayaa buu yiri cidii meesha inoogu imanaysa hatimaad halkaynu ku nasanayna wala fadhiyaya meeshii iyagoo fadhiya ayaa la soo gaadhay dabeetana
inta gamta iyaga loo joogsaday oo cabdilaahigii la dilay oo xooli dib looga qaaday oo dureydkan la dhaawacay oo isagoo maydnimo looga tegay bay ka tageen kadib buu gabay tirinaya oo walaalkii rafaa ugu samaynayo walaalkii buu u baroordiiqaya gabayga baroordiiqay ku jirtaa beydka kani gabayga baroordiiqa waxa ka mid ah abyaat uu leeyahay wanaag baan idiin sheego waa lay diiday laakiin dee miyaan wax kala ahay buu yidhi nin reer hebel un baana reer hebel baan khilaafi karaya halkay ku madhaan un baan ana kula maranayaa buu leeyahay fikraddu waa taa xataa wanaaggaan sheegay haddii la diiday reer hebel halku ku madhay un baan ku marhanayaa bay taagnaayeen idan waxaanay dadkani waxay rumaysnaayeen baa la bedelay oo nebi maxamed bedelay calayhi salaatu wasalaam qabiil iyo qarannimana ma aha wax isqaadan kara waayo reerka meesha qabsada waxaynu arkaynaa faanfaankii inuu inaga helay ama dowladnimadii inuu boobayo ama wixii inuu boobayo waa inaynu dadkan mabaadi' geynaa waa inaynu dadkan afkaartooda bedelnaa si u fakerayaan waa inaynu bedelnaa markaas bay dhici kartaa inay dowladnimo wax ku tari samaysanto qabiilku dee uu sii filqamaya uu sii yaraanaya nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa daa'ifadii fircawn iyo kooxdiisu dad buu gumaystay laakiin muxuu ku gumaystay wuu qaybqaybiyey ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiica yastadcifu daa'ifada fircawn waa kibray baa ilaahay yidhi dadkii meesha joogayna kooxu ka dhigay kooxo markay kooxa noqdeenna kolba koox buu gumaystaa buu nebigu tilmaamaya qur-aanku sheegaya koox buu kolba gumaystaa kooxda uu gumaysanayo axkaam adag buu ku xukumaa in caruurta raggooda la laayo dumarkooda la reebo kooxana wuu soo dhoweeyaa soomaaliya maanta saasumaa ka jirta gaalada international community ee la sheegayo iyo gaalada inugu hareeraysan marka la eego kolba reer bay soo yaro dhoweeyaan reer bay hub yaro siiyaan reer kalena aakhira loo diraa uun kaa marka muddo la wadana xagga kalunbaa la wadaa uno reer kalena markiisuu addisababa ka daadegaa addisababa baynu si weydweydaaranaa wax badan oo kale isma bedelayaan idan waa taftiit wax keena haddii ummadda la burburiyo ayankan waxa lagu burburinaya ha ahaadee waxba ma dhalanayaan idan warku wuxuu ku kooban yahay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam qabyaaladteenna ka adag teenna dadku waaba muslim oo wuu tukanaya waxbuu rumaysay ibuu daweeyey qabyaaladteenna ka dhaqan xun oo ka dhaqan adag oo jaahiliyo aan diinna haysanin ayuu nebi maxamed daweeyey oo ka dhigay dowladdii dunida ugu xooga badnayd uu ka dhigay hadday taasiba dhacday innagana teenna waa la daweyn karaa waa dad muslimiina oo dhibaata dhex martay oo jira waa la daweyn karaa dawadaasi waxay u baahantahay kow inaynu islaax ka dhex raadino bulshada reeraha kana heshiiyaan laba inaynu cadaalad raadino oo cadaaladdaa dadka deeqda ninku tollaayay wuxuu u leeyay wuxuu xaqa u lahaa buu waayayaa cid la dhicisa waa la dulminaya dulmigaa wuxuu keensaday markaa inuu reer dabada geliyo laakiin hadduu cadaalad helayo hadduu helayo bolis intuu tago xaqiisa u dhicinaya tollaayana ma yidhahdo cidna uma yeedheen haddaynu markaa dadkan heshiis ka dhex raadino haddaynu cadaalad ka dhex raadino haddaynu mabaadi ku beerno oo diin islaam dib u noolayno haddaynu samayno ahdaaf kubraayo ay ku tanaafusaan waxay ku loolamaan oo weyn aynu u samayno waa wax fudud bale waa wicaal la adeegsan karo khayrka wax u tari kara reernimadu markaasi siday jiilkii saxaabadaba wax ugu tartay ka reer ahaan markay tahay aan tacasubka la soconin ama haddaynu isku dayno inaynu dimuqraadiyad geyno ama waxa kan geyno waxba bedeli mayno soomaaliya 60kii markay ka baxday dimuqraadiyad bay qaadatay laakiin dimuqraasigeedii wuxuu isu bedelay doorashooyinkoodii ugu dambeeyay 82 xisbi baa furaa 82 xisbi reerun bay ahaayeen jilib boloo yaroo hoosaba xisbu samaystay waxba isma bedelayaan imikada haddaad axsaabta furto axsaabtu uun magacyadii reerun baad s iyo wax kaloo aad ku dartay ku